dadka ahlu bid'ah wa ahraqu lil qulubi min al-lahab cidda bidcooyinka u ehelka u saaxiibkaahi way ka shar badan yihiin macaasida shahawaadka ku dhisan ee naftu jeceshahay cidda u ehelka ah yagaa ka daran ahlulbidacu waa kalcaqaarib waxay la mid yihiin dibqallooocyaday la mid yihiin faidaa tamakkanuu ladaguu markay awoodi karaan waa qaniinaya ahlulmacaasiga iyo ahlulbidaca daran sufyaan athawri ayaa waxaa lagu yidhi waxa yimi hebel sheekh la ammaani jiray ayaa yimi baa lagu yidhi markaasu waxay eegtaan cidduu ku dego markaasaa waxaa lagu yidhi sufyaan athawri wuxuu ku degay nin qadari ah oo qolyaha qadarka diidan ka mid a sheekhi maba walaacina wuxuu yidhi huwa qadari ilaahay wuxuu inoo sheegayaa aayaadka ilaahay cidda ku dheeldheelaysa ee ka kufrinaysa ee tacaddiga aayaadka ula imanaysa inaan lala fadhiisanin iyadaan lagu inkirayn oo xumaantii aan laga reebin bacdi waxay ka daliishadeen aayaddan in waxa weeye dadka bidcada iyo dalaalada ku sugan duruusta ay dhigayaan inaan la dhegaysanin ayay ka istimbaadeen oo kala baxeen waayo waxay yidhaahdeen bidcadoodii iyo waxay ku sugnaayeen ama shirkiyaadkay ku sugnaayeen ayaa waxaa laga yaabaa inay markaa aayaad ka hor imanaya soo maraan ama axaadiis ka hor imanaysa dabeedna ay taxriifiyaan ama axaadiis iyo aayaad aan bidcadooda ku tusinaynin ay u daliishadaan bidcadoodii iyo baadidoodii ay daliishadaan oo taxriifiya maadaamay sidaas tahay oo sharaxa duruusaha ay sharxayaan ama waxay dhigayaan aynay ka madhnaanaynin taxriifaadkii la beddelayay nusuusta oo macaanidooda la qalloocinayay in majaalistooda aan la xaadirin oo duruusahooda aan la dhegaysanin ayay bacdi ka istimbaadeen oo kala baxeen alimaam ibnu taymiyana waa ki yidhi ahlulbidaci sharun min ahli almacaasi ashahwaaniyati bisunnati waalijmaac majmuucu fataawuhu ku sugan yahay hadalkaas wuxuu odhanayaa cidda bidcooyinka u ehelka u saaxiibkaahi way ka shar badan yihiin macaasida shahawaadka ku dhisan ee naftu jeceshahay cidda u ehelka ah yagaa ka daran oo maxay kaga daran yihiin sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waa caddaysay inay ka daran yihiin ijmaaca culammaduna waa caddeeyey ahlulmacaasiga iyo ahlulbidaca daran wuxuu soo arooriyey shiikhii oo u daliishaday madaxdii daalimiinta ahaa ee fasaqada ahaa ee dhiigga muslimiinta daadinayey ee dulminayey ee xoolahooda dhacayey nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ha la dagaalaminoo inta islaamnimada ay ku sugan yihiin oo milladda aynay ka bixin oo gaaloobin iska daaya ha la dagaalamin waayo fasaad ka fara badan baa ka dhalan qolyihii khawaarijta ahaana wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam la dagaalama ayuu yidhi marka ahlulbidaci la dagaalamuu yidhi ahlulmacaasigi iyo ahlujawrkiina wuxuu yidhi ha la dagaalamin markaa dee in ahlulbidacu ka shar badan yihiin ayaa laga qaadanayaabaa ibnu taymiya odhanaya ijmaaca culammadana waa ku sugan tahay oo culammadu way ku ijmaacsan yihiin ahlulbidacu inay shar badan yihin waxaana yidhaahdeen culammadu dee bidcooyinka laftoodu waxay sababaan iyo macaasida mid walba haddii la caadaysto halis waxay u tahay ruuxu inuu khaatimo xumaysto halis oo waddada yari waddada weyn bay kugu riddaa albidacu sababu lkufri asheekh maxamed kitaabu tawxiid waa ka ku odhanaya albidacu sababu lkufri bidcooyinku waa sababtii gaalnimada nabigu sala allahu alayh wasalam saddexdii saxaabi ee ghaswadii ghaswatu tabuuk la odhan jiray ka hadhay cudurdaar la'aan uga hadhay waxa uu amray in laga haajiro aan lala hadlin oo lala fadhiisan oo lala macaamilin 50 habeen iyo 50kooda maalmood ayaa xidhiidhka loo jaray ilaa markii dambe ay soo degtay aayaddii suuratu tawba ee sheegaysay in laga toobad aqbalay wa cala alhalaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxbat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh markaa laga toobad aqbalay baa la in lala hadlo oo la soo dhoweeyo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xadiiskaa waxaa laga daliishanayaa ciddii markaa fisqi ama macsiyo la timi in laga haajiri karo waxaa kaloo laga daliishanayaa cidda bidcada u saaxiibkaa in laga haajiro laga dheeraado yani weliba dee iyagu waa ka toobad keeneen oo waa laga toobad aqbalay ee kuwa markaa bidcadii aan ka toobad keenin ama macsiyadiiyo fisqigii aan ka toobad keenin dee 50 habeen kuma xadidmayso waxay noqonaysaa intay ku sugan yihiin oo aynay ka toobad keeninba in laga haajiro laga dheeraado culamadu calaa kulli xaal mawduuca ku saabsan hajru lmubtadic waxay ka qoreen musanafaad iyo kutub bay ka qoreen sheekhii la odhan jiray bakri abu zayd raximahullah oo culammada kibaartee waaweyn ee sacuudiga ka mid ahaa hay-atu kibaar alculamaa ku jiray waxa uu leeyahay risaale la yidhaahdo hajru lmubtadic mubtadica in laga haajiro oo laga dheeraado ayuu markaa leeyahy bale a'immadii salafka waxa la soo naqliyaa ruuxa bidcoolaha ruuxa la socda inay odhan jireen isaga oo kale weeye ay odhan jireen sufyaan athawri ayaa waxaa lagu yidhi waxa yimi hebel sheekh la ammaani jiray ayaa yimi baa lagu
lagu yidhi markaasuu waxaa eegtaan cidduu ku dego markaasaa waxaa lagu yidhi sufyaan athawri wuxuu ku degay nin qadari ah oo qolyaha qadarka diidan ka mid a sheekhi maba walaacina wuxuu yidhi huwa qadari weeyaan buu hadda ninkan qadar laguma sheegin inkaarulqadar iyo wax la mida nin markaa sunnada lagu yaqaano ayuu ahaa baa layidhi daadna markaa beled aanu joogi jirin markuu yimi ayuu yidhi bal hadda cidduu ku dego eega markii la yidhi nin qadariyuu ku degey ayuu wuxuu yidhi huwa qadari wuxuu cuskanayaa almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalilu xadiiska nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas yidhi ayuu cuskanaya yacni ruuxu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiibuu ku sugan yahay qofka uu jecel yahay la saaxiibka yahay diintiisa uu ku sugan yahay ee ha eego midkiinkuu la saaxiibay cabdullahi mascuud wuxu yidhi almar'u bikhidni qofku wuxuu ku sugan yahay yacni markaa saaxiibkii wuxuu yahay macnaha noocaasa waatay qaateen culammada qaarkood oo gabay ka dhigeen عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي waxau yidhi ruuxa isaga ha weydiino ha odhan muxuu yahay ee waxaad tidhahdaa yaa la saaxiiba yaa fakullu qariinin bilmuqaarini yaqtadi mid kastoo lamaanihi ka ku lamaanee la saaxiibka waa ku daydaa marka kaas eeg idaa maa saxibta alqawma fasxab khiyaarahum haddaad ragga la saaxiibto kuwa khiyaartooda alla saaxiibee wanaagsan walaa tasxab ilarda fatardaa maca aradi liita ha la saaxiibin oo dabadeedna aad markaa noqoto adiguna mid liito aad la halaagsan si aan taasi u dhicin alla saaxiib marka waxa weeye ruuxa marka xun ruuxu inuu la saaxiibaa dee waa ta'siirinaysaayo waa saamaynaysa calaa kulli xaal culammadii markaa salafka aad bay mawduuca u markaa adkayn jireen aad iyo aad ayay markaa u adkayn jireen waxaanay culammada qaarkood tilmaameen qawaacid mawduuca ku saabsan oo kollay awqaadda iyo wakhtiyada la eegaayo oo wakhtiga sunnadu dee daahirka tahay iyo wakhtiga sunnadu aynay haalibka ahayn ee waxa weeye jahliga iyo bidcada iyo xumaantu ay markaa haalib tahay isku nooc maa saas aawadee imaam axmed ibnu xambal markii lagu yidhi meesha khuraasaan la yidhaahdo waxaa u fara badatay bidcadiibaa aad ugu fara badatay ya marka hijraanka laga haajirayaa ruuxii tagaa dadkao dhan miyuu ka haajiraa wuxuu idhi ahlu khuraasaan laa yaqwowna calaa dalik reer khuraasaan taa ma awoodaan waayo dee bidcadiibaa haalib oo fara badan sunnadii waxa weeye waa markaa qaliil maadaamay sidaas tahay dee qudro iyo awood uma shaykhulislaam ibnu taymiya hadalka imaam axmediya waa soo naqlinayaa waxaanu tilmaamayaa aqwaasha culammadu ay yidhaahdaan waxay markaa in badan oo ka mida ay tahay qadaaya acyaan weeye oo suwarka la noocaa bay ku degaysaa ee waxay noqonaysaa markaa mas'aladan oo kale in la eego masaalixda iyo mafaasidda in la eego oo waxa looga jeeday hajriga laga haajiraayo marna waxa weeye waa hajri cuquuba looga jeedo marna waa hajri salaamo looga jeedo ruuxu inuu ka badbaado marka hajriga salaamada looga jeedo ruuxu waa iska ilaalinayaa kollayba waa ka fogaanaya waa intuu iska dhowri karo xasaba almustataac inuu iska ilaaliyo ka dheeraado wey laakiin hajrigii cuquubada ahaa wuxuu ku xidhan yahay maslaxa raajixi inay ku sugan tahay taasuu ku xidhan yahay hajrigi waxaa laba nooc midna waa hajru cuquuba oo tacziir iyo ciqaab baa looga jeeda midna waxa weeye waa hajri wiqaa'i waa hajri iska ilaalin looga jeedo hajri iska ilaalin looga jeedo wey marka hajriga iska ilaalintae qofku uu doonaayo diin ahaan ruuxaas inaanu ta'siirin oo bidcadiisa ama shirkigiisa ama xumaantiisa aanu ku saamaynin kaasi waxa weeye inta uu awoodi karuu ka fogaanaya oo iska dhowraya iska ilaalinaya laakiin taasi ma keensanayso salaantii inaanu ka radino keensan mayso laakiin hajriga cuquubadu wuxuu keensanaya xataa salaamta inaan laga radin marka hajriga cuquubadu wuxuu ku xidhan yahay maslaxa raajixi inay ku sugan tahay oo mafsadada ka imanaysa iyo dhibta ka imanaysa waa inay ka badan tahay maslaxada hajriga ku jirtaa waa inay ka badan tahay haddii maslaxada hajriga ku jirtaa aynay ka badnayn hajriga hajrul cuquuba ah lalama imanayo ayuu taxqiijinayaa shaykhulislaam ibnu taymiya kama fii majmuuci alfataawa waxay soo naqliyaan ahlucilmigu dadka qaarkood oo dad ahlulbidaca dhegaystay oo bidcadoodii iyagoo markii hore ka madhnaa bidcadoodii markii dambe raacay waxaa ka mid ahaa sida ibnu bata waa min culamaa'i qarni alraabic ibnu batata alcukbari wuxuu ka mid ahaa culammadii sunnada kutubta ictiqaadada aana raggii wax ka qoray buu ka mid ahaa oo kitaabu ictiqaadu leeyaho alibaana la yidhahdo waana min culamaa'i qarni alraabic wuxuu odhanayaa dadka ahlubidacahi wa axraqu lilquluubi min allahab qalbiyada waa uga gubitaan badan yihiin ololka jidhkana waa kaga daran yihiin cadhada wuxuu weliba sii raacinayaa dad ahlu sunnaa ayaa waxay u tageen dad ahlulbidaca oo waxaa la yidhaahdaa moxamed ibnu saa'ib ninka la yidhaahdaa wuxuu ahaan jiray sunni qolo ahlubidacoo murji'a ah ayuu yidhi bal maan dhegaysanno si aynu u radinno cilmi inuu ka faa'iidaysto isagu wax ka dhigto uma socon wuxuu lahaa maan dhegaysanno si aan u radinno oo shubahaadkooda u ogaanno kama soo noqona sidiibu ku tegey irjaagi sidiibu ku gala rag kalena waa tiriye imaam axmed ibnu xambal xaaris nin la
yidhaahdo aad uga digay oo uu yidhi waa bidcoole. hadda xaariskaa waxay u qabaan dad fara badani inuu yahay caalim sunni ah, laakiin imaamu ahli sunnati waljamaaca isagu wuxuu u qabay inuu ninkaas yahay bidcoole. oo dee lama eego haddii markaa la yidhaahdo hebel layskuma waafiqin inuu bidcoole yahay, dee itifaaq lama shardiyo, waayo dad fara badan oo dee ahlubidacaba layskuma waafiqin. waxaanay culammadu yidhahdaan aljarxu lmufasar muqadamun cala tawsiiq. sharxiga fasiran baa laga hormariyaa tacdiilka iyo tawsiiqa, waayo culammadu waxay yidhahdaan maca aljaarixi ziyaadatu cilmin. hadduu caalimna ruux ammaano uu yidhaahdo maa calimtu fiihi laa khayra, wax khayra mooye wax kale kuma ogi, mid kalena uu yidhahdo anaa ogo waxayo waxaasaa ku sugan, oo waxaasina ay tahay wax muxaqaqa, dee waxa weeye salaamadu waxay ku jirtaa inaad iska ilaaliso. xaaris markuu aad uga digay ayaa imaam axmed loo yimi, markaasaa waxaa la yidhi ninkani wuxuu la deris yahay, xaaris buu la deris yahay, bal hadda xaaris uga warram. imaam axmed waa xanaaqay oo dabeedna markaasu wuxuu yidhi ninka nin arrinkiisa hoos u og mooye nin kale garan maayo. hebel baa u tegey kama soo noqon, hebel kalaa u tegey kama soo noqon, hebel kalaa u tegey kama soo. bidcadii bay yacni wada qaateen. oo culammadii sunnadu waxay odhan jireen ruuxa bidca ku sugan tahay waxaa dhici karta bidcada inuu kaa qariyo, oo ilaa inta uu awoodi karayo meeluu ku nashriyo inuu hoosun u wada dhici. waatuu imaamu albarbahaari odhanaayo kitaabkiisa sharxu sunna, ahlulbidacu waa kalcaqaarib, waxay la mid yihiin dibqalloocyaday la mid yihiin. dibqalloocu waa isqarinayaa, markuu awoodi karunbuu dabada dhag ku siinay. fa idaa tamakkanuu ladagu, markay awoodi karaan waa qaniinaya. markaa saas aawadeed in waxa weeye aad iyo aad laysaga jiro weeye. asheekh ibnu cuthaymiin waxaa la weydiiye oo lagu yidhi ruuxa markaa bidcoolaha ah naxwe ma ka dhigan karaa? hadda caqiide lama odhan. ruuxa bidcoole ah naxwe ma ka dhigan karaa baa lagu yidhi. wuxuu ku yaallaa fatwada shiikhu ay ku taallaa sharxu xilyati taalib ilcilmi, sharxaasay ku daabacantaha. waa kitaabuu shiikhu sharxay. kitaabkana waxaa lahaa bakri abu zayd baa laha. markaasuu wuxuu odhanayaa may xataa naxwe laga dhigan maayo ahlubidca. ruuxu hadduu bidcoole yahay wax kale iska daa, diin kale in laga akhristee xataa naxwe laga dhigan maayo. waayo buu yidhi laba aafaa ka iman. aafa waa maxay? waa midda koowaade ruuxan bidcoolaha guruur bay ku ridaysaa, uu bidcadii ku sii kadsoomo oo uu is yidhaahdo wallaahi dee cajiib baaba tahay, waa taa lagu dhegaysanayo oo dee waxa weeye kii sunnada sheeganaya laftiisu waa kaa ku dhegaysanaya. markaa guruur uu bidcadii ku sii kadsoomay ku kalifaysa. ta kale waxaa dhici karta dadka qaarkood markay arkaan inay iyaga laftooda ku kadsoomaan oo la yidhaahdo dee waaba la dhegaysanayayoo sheekh hebel baaba dhegaysanayo naxwaha ka akhrisanay, markaa dee inuu cilmi badan yahay ku tusinaysa. ta kale waxaa dhici karta inuu ruuxa laftiisu dee naftiisa kama aamin qabo, rubama yata'asar. waxaa la yidhahdaa cimraan ibnu xitaan ninkii laodhan jiray, waa ninkii khaarijiga ahaayee ninkii cali dilay majeeranaya ammaanay, yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowman faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana. cabdiraxmaan ibnu muljam aljamahu allahu binnaar ayuu sidaa u majeeranaya u ammaanaya, oo arlada korkeeda ciddii ku sugnayd ee ugu khayrka badnayd markaas dilay, oo uu leeyahay markaa raalli ahaansho ilaahay buu doonay, dadkana waa ugu miisaan weyn yahay xagga xasanaadka. yaa saasaan u filayaa buuli. ninka noocaasi waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaan jiray sunni buu ahaan jiray. gabadh qurux badan ay ilmaadeer yihiin oo khaarijiyada ah ayuu guursaday. waa gabadhii markii dambe ku tidhi labadeennuba ahlu jannaynu nahay. markaasuu yidhi waayo? isaguna aad buu u fool xumaa baa layidhi. markaasay waxay tidhi dee anoo kaloo qurux badan baa lagugu arsaaqay, markaasaa shukri naqday, ila waa lagu nicmeeyey, anna adaa laygu kaa imtixaanay, markaasaan anna sabray bay. marka shaakirka iyo saabirkubana waa ahlu janno. calaa kulli xaal gabadhii khaarijiyada ahayd markuu guursaday ayaa lagu yidhi gabadha khaarijiyadda maxaad ku fashay? wuxuu yidhi sunniyad baan ka dhigayaa. isagii bay khaariji ka dhigtay. hadda gabadh baa sidaa u beddeshay. bal nin bidcoolahoo kaa cilmi badan oo aad cilmi bidayso aad cilmi u doonatayna bal ka warran, oo masaa'isha siduu u dhigaayo iyo siduu u taxriirinayo iyo sida uu markaa waxaweye rogayo dee mid walba ka aqoon badan, shubahaad buu kugu furi karaa aanad markaa waxaweeye adigu xalli u heli karin. markaa saas aawadeed dadka markaa bidcada iyo dalaalka u saaxiibka ah inaan markaa waxaweeye laga fogaado marka ay diin sheegayaan oo wax sharxayaan ama wax fasirayaan, in laga fogaado si waxa weeye shirkiga ay sheegayaan ama bidcada ay sheegayaan ayna kuugu saamaynin. culammadu waa ka istinbaadaan adiladaas. aasaartaas salafka ka soo aroortayna mawduuca way ku saabsantay.